haddaba madaxweynow waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare Xamsow waxaan waa taariikh berri bay qodi doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalamay burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood badan baa isku dayay dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhaya lahaa sidaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaaliya intii loo yeedho inay cid kale intay u hajabto ay u dhiteed galayso ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoonno aan isu nimaadno laakiin ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaana halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka amnigan ciidanka amniga gacanta u hay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan hadalkaygu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro weli kama tegin soomaalinimo waxaan dowlado ka diiday soomaalinimaan ku oggola waxaan cid kale ka diiday soomaalinimaan ku oggola war miis Soomaaliyeed aan ku wada hadalno waddankana horey buu rabaa inuu socdo dib ha u celin